kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka rasmi radio qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo ka socda banaanbax xoogan oo looga soo horjeedo dowladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Masar oo kala saxiixday heshiis dhinaca difaaca qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa warka rasmi radio magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa weli ka soconaya dibadbaxyo rabshado wato oo galay maalintii labaad oo xiriira kuwaasi oo ay dhigayaan dhalinyarada ku shaqaysata mootooyinka qaasatan mootobajaajta darawaladan ayaa mar kale maanta isugu soo baxay isgoyska kilomitir 4 waxayna xirteen wadadaasi oo ah mid muhiim ah oo isku socodka dadweynaha magaalada Muqdisho muhiim u ah sidoo kale waxa ay ku qaylinayeen ereyo ka dhan ah madaxda dowladda oo ay ku eedeynayaan in ay dhibaato ay ku hayaan shaqadooda qaar ka mid ah bajaajleyda oo la hadlay